السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد الجيت ستوري تي في إن شاء الله دول هني جالسيو ما تحس دول تاجنا سؤال بديقة قاربضن السويديان قارنا جرنيان لكن مهمة الواحد تهاي ودليل بديقة دتكو كوفيد كي وحياة بدن بس بدري قاربضن لوسو جوابين ربا إني أجادان القدوسيو سقطوا دليل أنت قادنا يسو ربا جرا سنان هرب إني لوسو الشيء قرطة إميغراسيون سوى كيسين بلا بيقلك عدا ووحي temporaire la yiraahdo résident temporaire iyo wixii permanent la yiraahdo labada kala kacdaa ko kala si eego hadana temporaire kun saddex loo kala kacdaa waa wixii la oranayo visiteur iyo waxa kala kacdaa maxaa ku raahideen waa soo visiteur qofka noqonaya travailleur temporaire uu noqonaya amba étudiant saddex laba kala kacdaa permanent uu saddex kala kala kacdaayna waa maxaa ku raahideen waa partie et travailleur qualifié dadku ay rahaan badiga hore u soo hadalnay dadka ay soo qaadanayaan badiga shaqaale qualifié ahaan raison permanent ku yimaada kuwa kale regroupement familial oo dadku ay sponsor amba ay damaanad qaadaan dadkooda keenaan baa jira taasina waa waxa weeyaan regroupement familial iyo partie réfugié goodna program kala weyn oo hore uga soo hadalnay xiga waa lixda weeyaan bal haddaba lixdaas oo iyagana si kala kac program badan oo kala baxanayna bal intaasi bal waxa isleegana insha Allah dib taagina maanta dilayaash loo verifiyo وهالك أوفيسيال كا مال قرا جرتا هذه جرنا سيدا هرا بنقول شيء سوقسي هوست كيليسي إن شاء الله بالهرا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم حلقة ما طلعوا قدر وكاتيجوان وحانينا ما تا فيديو جينا إن شاء الله عن نلا طيب سنة يو وارتقور سجوك كاتيجيسين ودلا ديميغراسيون مغوريسين كندا وحني صبيح دونا دلاجي إن شاء الله حلقة هذي دونتين سوقسي قلينا السوقسي هذي دونتين إن شاء الله يعني صبيحي ديان قابا كوكا دمكو كليكينيسين كوكا تكو كليكيسين إن شاء الله ولا كيسين هذا لنا نقول دالي ورا وقال سهرة من نقول شيء ديان قلنا وسط ين فيديو ميدونا تذكربا إني أقعدان حلقة سيدا دور كيسين هالكو حقوقا فيريفي الدلال كو أنجلوفون كان إن شاء الله بلو يقدونا كوكا دمبسان لكن أو كلاساري كو أنجلوفون كان لكن كان هو بارتي فرانكوفون دونك حلقة دك فرانكوفون كو بكا فايدي سكرا إن شاء الله قاطة ريجبوتي بالغيزون de Covid savoir qu'ici bas donc délai c'est de horamaha ou isbedelen donc c'est en raison de Covid donc ils traitent pas demande normale qui ou me traiter un bel kinilehin fournir des délais de traitement précis pour la plupart des demandes donc c'est ouais que ça il ne peut pas si de horamo hay créer délai n'a ni marché créer précis les gars délai achète les signes ou marge à essayer donc aux alentours découvrir la vie ou sanad ka يكون دوانيسا وحي كدام بسنة يو قال لو بلا بدل أما أفر بلا مصدح بلا كمان بسنة جبر وحي دافطة لقى حق بقول هذه دبسعتي لكن راح أقول لا دليل قرن على سكرين شوت وأقدر كلا سوي جاتي هالدوسية جاكو مريو حق بقول هذا بل هراء أنقل إن شاء الله سادور كيسين هالكن هراء بس أنا يوصل شيء وأكون يتابعش لفيريفينيو صدح لغورس وتمبورير تساني صور شيء وجروب ديل أو إسا ريزون تمبورير ولا إراوة كإيمانية أنا هلكن دقي وحلا أهو قفك دالحيسكا قفك دعلينو يمني يكشقاله محاكورا لوكيس كلها ما يكوكو محاكورا كشقيو أبقى كاتيجوريا أنت تلا الأركيسينو كلها هلكن وحلا أهو بيعمانا وضدك جوجي هديت ولا أبدين رونا كلنا ولا أنا هلكن أيوه قليهن وياك كدن أم بدلشتك كدن مسكوي دي سكريا كواس وكاتيجوري إميغراسيون غالا وميشيجي محاكورا إيكونوميجا waxaa jirta partir regroupement dadka waa dadka la damay damaanad qaaday qofkiisa keenayo refugiyaga waa kuwa soo sheegnay waa refugiyaashii wixii maxaa ku raayay halkan badiga khaasatan imkaari Djibouti loo geliya Canada saa hore in badan fiidiyoyaal badan ma ka soo kuma soo laamayo laakiin muhiimaddu maanta waxa weeyaan waa inaan soo dilayaasha bal hore aan qilno qofka visiteerka maxaa ku raayay hadduu waqtigiisa inuu ogaado halkan ugu horeysa dooranaysa wixii aad doonaysid kategoriyaagii baa dooranaysa midkaad ku jirtidba donc أنا waxaan qaadan wax ku bilaabi qof maxaan ku raahday inay zone temporaire dadka aan badiga degin halkan maxaan ku raahday dib u laamaya Canada ka dib uga laamay in joogaan in badan ay joogin amba dalxiis amba tacliin amba shaqaalaha maxaan ku raahday inay in u ka shaqeeyay dib u laamay ruqsadiisu ay kooban tahay ayaan qaadanaynaa halka wadanka waxa dooran xilliga inta u kala baxaa lagu sheegaya inta wax buu kala baxo haddii dalxiis ay tahay wad qaadan haddaad étranger joogtid haddii maxaa ku visa visitor aad Canada ka dalbatay midka doonaysa qaadan laakiin anu badiga waan hore waan soo sheegay kuwa Canada halkan ma qaato waa aragsa ma taas waa waxay kale laakiin muhiimadu waxay badiga dadka ka imanaya dad visitor oo kala qaadatay qof dalxiis doonay inuu ku yimaado sida uu ogaatid
waddankan baad ku qoraysaa Djibouti ma haddaad ku qorno waddankaad joogtid haddaa waddan kala joogtid oo reer Djibouti oo Turkiga ama dhulkaa kala joogtidna vérifier délai baad oran xilligaa qaar waad arki doontiin iminka halkan oo kaleete aucun délai de traitement bay kusoo saarayaan oo se hore u sheegeen parce que délai précis kuma siin karayaan donc halkaa waa ka arkaysaa hyper précis ba mais en général caadi ahaan délayaal badan bay wada bixiyaan bal haddana mid kale waxaan eegaynaa permiyaasha iminka haddaan eegno kaba soo qaad maxaan ku raagay Djibouti oo kale waxyaabaha kale aad dalban karaysiin iminka ni disponible permis d'étude tacliinta oo kale haddana aan eegno tacliinta waa kan tacliinta haddaan eegno tacliinta waa darkiisiin waxay nii soo saaraysaa waa si permis d'étude que maalinta dhigtid normalement waa laba bilood baa lagu soo jawaabaya iyo ka dhiganta xilligan iminkana waxay wadaan dossiyaashii la dhigay maxaan ku raagay waxay kuu sheegaan si vous avez soumis votre demande de permis d'étude y compris vos données parce que kolkaad caadi ahaan etaabka maxaan ku rahay horey baan permis d'étude kuwa soo wixii amana videogiisa laakiin muhim waxay tahay kolkaad baalka application maalintaas u dirtid caadi ahaan 2 cisho ama 7 kadib waxay kusoo direen biometriga mari kolka délai maalinta maadibku waxay traiteynayaan makula avant les 15 mai donc maanta waxaan nahay waa maxaan ku raahideen allahumma salli ala maxamed minku waxaan nahay waa 4 juin waan marayn donc waxay traiteynayaan 15 mai donc mais bay wadaan kuti avant les 15 mai le dossier vous devriez recevoir une décision d'ici le 6 août iyo kuyina ilayhiin kuwaasna heli doonaan sida u dhexgalaan délaigaas iminka tacliin waa étudiant kale vérifier karaya haddaa mid kale temporaire koo kaleete travailleur temporaire va dire donc un permis de travail étranger par exemple de Djibouti au Kala Ormena dans halki kala Djibouti ça va accepter étudiant ou plus ou moins au commun ou dans le dor quand on kala Djibouti ils n'ont pas de délai mais dans wada kala qata par exemple Turquie dairaho Turquie au kala qui joga est-ce que on va avoir 16 semaines voilà par exemple que vous choisissez à partir de la Turquie donc on wada kala joga wada kala douti va pour ça donc ça va consigner haddaan iminka qaadano dadka immigration économique dhigtay waa itaab kale travailleur qualifié dadka waxa haysta categoriga way badan yihiin oo waa kuwan tous les programmes ni soo baxayaan iminka disponible ka donc hadda badiga dadka ba Quebec baa jira ka duwan laakiin haddaan eegno par exemple en général dadku ay dhigtaan waxa jira travailleur qualifié badiga haddii Quebec ay eegno iminka par exemple hadda tirahdid je n'ai pas encore présenté ma demande donc imika haddaad weli dhigin waa inaad ogaato doons aniga oo kale imika haddaan doon inaa ogaado waxay ka dhigan tahay waxaad sugi maalintaad programka gashid 15 à 17 mois yaad sugaysaa bay ka dhigan tahay donc waa maskaxdaada garatid déjà 17 mois baad sugaysaa jawaabtaada donc imika masiga haddaad si hore u dhigatayna j'ai déjà fait dans les 27 mois donc qofkii maxaan ku j'ai déjà présenté une demande celui qui a déjà présenté 27 mois buu sugayaa donc voilà donc taas wuu initié haddaan travailleur qualifié haddaan eegno par exemple fédéralka oo sidoo kalete je n'ai pas encore présenté nirana waa maanta wix laga bilaabo waa 6 mois ok haddaan hore u présenté rahana par exemple waa 6 mois waxay isu bedelin donc en général express weyn taas waa maxaan ku travailleur qualifié expresska dadka dhigta haddaan soo laamo par exemple laba programme aniga tusay mais laakiin kuwo kaloo badan baa jira par exemple candidat de province kuwo badan baa jira Atlantiga mais labada badiga ay dadku Djibouti ay dhigtaan ma ni soo qaataan kuwa kale kaba dhigna ma dhigtaan laakiin iska dhigi karaysaa midka doonti baa dooranaysiin inagana wax xiranta ashwaagu bal haddana aan eegno insha Allah Allah masaqadi gumo familial qof baad taaqinaysay ama qof baad maxaa ku raahideenay soo damina qaadatay oo dadkiina oo ka doonaysan ka keentid sagayna doonaysan ogaatid waayo qofkaas uu maxaaskaaga ama reerkaaga ama ilmahaaga ama waalidkaaga midka doonta haato ka soo qad waalidkaa yahay delegaad eegan waa ka jawaabtu waa 20 à 24 mois donc waa inta la sugayo waa exactement donc on parrainage waxaan ka hadlaynaa parce que ma hadlayno superviseur dadka bal superviseur waa plus partie temporaire ku kamid yahay ça waa traitement kuliiso waa qaybta muddo galaya oo visiteur oo kale laakiin waa superviseur ma waxaan ka hadlaynaa waa parrainage qofka bal loterie dadka hela weeyaan caadahan haddii halkan ayno on faut en charge dad imika par exemple conjoint haddaan eegno oo kuwa xidhi à partir de l'étranger dadku stay u badan yihiin waa 12 mois waa inaanayba iyo sugaysaa 12 mois wixii ka badan normalement tu peux waad waxaad karaysaa suivi baa la waxayn waad eegi halkay etaaga dossier-gaaga uu joogo haddaan sii soconno waxaan eegnay waa parrainage-kii baan eegnay insha Allah haddaan kusii soconno waxaan eegi karnaa refugié-ga oo kale dadka halkan yimaada ee magangelyada weydiisanaya inay dalka Canada degaan ay maxaan ku raadinay amba Djibouti aan ku laami karin amba ka yimid Djibouti dhibaato sheegtay ee doon inay dalka Canada ay degaan dadkaasina waa eegan karayaan xilliga waxa weeyaan waa refugié u intiibu kala kaca lagu sheegaya ama gouvernement ee charge qaadaysa ama secteur privé ga qaadaysa imise waa waxaan ku il est protégé
badiga waxa weeyaan labadan aad arkaysiin waa ce qu'on appelle réfugiés badiga maxaa ku raahideen outre frontière waa la yidhahaayo dadka imanaya extérieurka maxaa ku raahideen nabadgelyada ka weydiistay à l'extérieur du Canada waxay ka weydiisteen dibadda Canada ka weydiisteen labadan aad arkaysiin iyaguna waa laba kaloo sinon au sens de la convention de Genève baa la yidhahaa waa personne protégée article jira ku kala duwan selon 97 kalma 96 dadkii isdiibay la ogolaaday halka kala joogo ba garan karaya niga jawaabi karaya laakiin waa labada baa jira badiga Djibouti 96 baa lagu siiyaa mais laakiin dumarka waxa jira igna ilaaha waxba lagu soo wixii ama soo dhibaateeyay igna maxaa ku raasay selon 97 aux personnes à protéger la ilaha kuwaasna lagu siiyaa kuwaas hadda par exemple ay dadku badan yihiin 23 mois donc imika hadii traitement dossier lagu bilaabo donc waa intay qaadanayso iyo ka dhigata kama dhigno waa maximum kee ku sheegay kama dhigno waa lagu soo jawaabi karaya 4 mois laakiin delayaashan aan tusay waa delayaasha aad sugaysid tendon ta tête marka wax diraysan programka waxaynaysid waa inaad ogaatid baska badiga dadkeena waxyaabaha ku dhaca wixii iyaga wareysan qaar badan waa way raagtay qaar war ma hayo qaar xilliga waxyaabo badan bay waa confuse weeyaan wax badan baa kala dhex gala donc anu lama badiga waa iska caadi weyn informationka faqad ahayn amba xogteedii wixii aad garnayn waa dhibaatada iska leedahay waxyaabo badan bay dadku iska waxaystaan donc xilliga wax la yiraahdo jira qofku xilliga maxaa ku raahideen isagu bas ka presumeysay wixii iska soo qoobanaa sidaa oo dhacda kana sidaa oo dhacda kama dhigno adig kan wax ku dhacday adig ku dhacaysa kama dhigno taas waa ka vérifier ça de temps vérifier si réfugiés kan baa qaatay laakiin way jirtaa secteur privé dadkan maxaa ku raahideen secteur privé waa groupe de 5 jira maxaa ku raahideen kuwa kale waxa jira English ku keenaa jira kuwa badan oo secteur privé la yaabin jira ina waa ay karaysa Djibouti hadaan yiraahdo par exemple dans aucun délai avec sama secteur privé aucun délai biirahin mais par exemple parce que Djibouti kan leeyahay badiga dadka Djibouti weeyaan en général donc 10 mois par exemple waa à partir de dadka ay soo dhamaan qaadayaan par contre wax soo maraysa hay'adda qaxootiga soo maraan labadaas ya soo mari tan waa qof halkan jooga Canada oo Canada way cadiyeen derrière ça va vérifier si haddaan kala qaato ka soo qaad par exemple qofka carte de résidence haduu dhiganayo dadka halkan jooganayna waa sidoo kale ka circonstance humanitaire baa jira badiga qaar baa jira qofka badiga lagu soo diido maxaa ku raahideenay partigina horos partigan badiga qofka dadka lagu ogolaan waayo selon la convention au sens de la convention de Genève 1951 qofka lagu ogolaan waayo badiga après wuxuu tagaa humanitaire ki waxaystaan qaar baa jira loo humanitaire hadda waxaysatid en général hadda je n'ai pas encore adwili dir waa ogaan karaysa imika intaas humanitaire en général waa 36 mois 22 à 36 mois baqata haddii aad hore u dhigtayna waad arkaysaa 26 mois baqata donc 30 mois moyen hadda dhigtid waa 30 mois inta humanitaire lagu jiro maalinta diritid ku dar 30 mois en général inta lagu soo jawaabaan wixii inta dhaafsan suivi baa badiga la waxaynaysaa en général iyo des avocats ga amba qofka ku matalaya qaareenka badiga kuwa paskayaashaas waa kayaal badiga qaareen iyo avocayal ba u baahan tahay dadka iyaga iyagu suivi way ku sheegan laakiin adigu deeleg waad ogaan karaysaa ma aha wax qarsoon wax walba iloomiyo online sauf information waa inaad heshid hadad ku fudud heli kareen iyaguna waba haystaan ba ku kala heli kareen waa ka insha Allah halka aad keedisiin a chaque fois ça ni sheegay qofulka eegta toujours waa Canada parce que waxyaabaha badan aqnaaga dadka ki inviteenisa maxaa ku raahideenay ay dadku badi ku garneen a chaque fois waa si kaba jira badigana ani sheeg horay hoostana waan igala qaybsan doonaa laakiin insha Allah saad warkiisiin waa kan deelayaasha wuxuu ku dhan wixii newsa nouveauté deelega meesha qura laga vérifier meel saddexaad meel afraad meel shanaad ma jirto waa meesha qura surtout wixii fédéral ani sheegay wixii provincial waa 13 kii ani soo sheegay saddexdii fédéralka ma ahay 10 kale provincialka mid walba calan isu sitaa kaasina waa maxaa ku raayay inkastoo qaraara ay kabeeg u bakiir duwan laakiin sagaalka kaleete waxay isku yimaadaan fédéral ku yimaadaan laakiin décision waxa qaadata caadi ahaan waa fédéral ka qaata à part Québec oo CSQ bixisa ama CAQ المهم halkan baa insha Allah keeli doontii wixii verification delega qaybada maniir jinaya maalin wanaagsan aan bahabin wanaag waqtiga inta wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi